22 sano jir waxay hal mar isla guursatay 5 wiil oo walaalo ah oo isku hooyo iyo isku aabba ah waxay hadda kula nooshahay hal guri oo mid waliba qolkiisa u gaar yahay habeenkii ay tahay tookadiisa ayay qolkiisa ugu tagaysaa Raajub mar ay ka hadlaysay arintaasi waxay tiri markii hore waxaan dareemayay xoogaa ciriiri ah laakiin hadda waan la qabsaday oo iima kala fadli badno nimankayga kii aan doono ayaa nolosha farxadeeda la qaadanaya waxay intaasi ku dartay Raajub hadalkeeda in mid kasto oo wiilasha walaalaha kamid ah halka habeen ee tookadiisu ay tahay xaajadiisa uu soo dhameysanayo iyada oo tiri ma kala garanayo ninkaan u dhalay canuga jiro sanadka 4 bilood laakiin waxaan ogahay kaliya dhamaantooda in ay aabbo u wada yihiin Raajub waxa kale oo ay sheegtay in guurka walaalaha isla dhashay waqti badan ay ku taami jirtay in ay samayso maadaama waalidkeed uu sameeyay ficilkan oo kale ayna ku taagan tahay isla jidkii uu waalidkeed u jeexay waxaa la sheegaa in Raajub hooyadeed ay hal mar guursatay 3 nin oo wada dhashay Raajub waxa ay sheegtay inay dareemayso jacayl iyo farxad weyn marka loo eego haweenka kale ee halkanin qaba nimanka isla dhashay ee halka haween wada qaba iyagana mar la weydiiyay sida halkan ruux ee dumarka u wada wadaagaan waxa ay sheegeen in aysan kala masayrayn waligooda sida ay ku wada nool yihiin ay ku faraxsan yihiin ayna la mid yihiin sida hal qoys oo barwaaqaysan la yaabkiisa ayaa sheekadaasi ciwaan looga dhigay waana dhaqan laga heli karo qayb ahaan qabaa'ilada Hindida ah غير شرفت العديم وقالك إن قنعيي لايك سارة شينا شرقرية جنال كان سكريب لها سيادو لسعطان مقالة دنبي عن سوقلي دونو أنا كان إنو نقطة بيرقلين وجنال كنو وكرو وأن ما سنتين معلم وين أكسن